It's okay, and the civilian, the local, they are very happy to come. Us and KDF and also the Somali National Army, we are together one team. You have seen the local. saraakiisha waxyaalaha qaar ka wada hadli doona qorshaha dagaalka hadda xeeradan soo dhisanta waan aragnaa waxa loo socdaa waa qarax la soo galiyo cabsiina oo aan ilaahay janno uga baryayo la shaka inuu jannada galaye wiilkii qoriga sabanka haystay ay intuu meesha u istaagay ku gubay gaarigaas Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa hogaamiye siyaasadeed oo muddo dheer ku jiray qariirada siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu hogaamiyaha Jubbaland oo kamid ah maamul goboleedyada ugu weyn Soomaaliya hogaamintiisa waxa hareeyay guulo iyo muran siyaasadeed iyo eedeymo fara badan oo ku saabsan sida uu xilka ku qabsaday iyo sida uu u maamulo maqaalkani waxaynu ku eegi doonaa taariikhdiisa iyo qaabka uu siyaasadda ku soo galay ninkan oo muran badan dhalisay Axmed Maxamed Islaam waxa uu ku dhashay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe asalkiisu waxa uu la xiriiray qoys reer guuraa Soomaaliyeed ah waxa uu muddo dheer ahaa dagaalyahan diimeed isagoona ka qayb qaatay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ka jiray koonfurta Soomaaliya siyaasadda waxa uu si dhab ah u soo galay markii uu ka mid noqday ururka Al-Ittixaad al-Islaam oo ah dhaqdhaqaaq islaami ah hubeysan markii dambena waxa uu Axmed ka baxay ururkaasi kadib markii uu bartay muhiimadda siyaasadda iyo nidaamka dagaalkii maxaakiimta islaamiga ee 2006 Axmed waxa uu ka mid noqday hogaamiyaasha maxkamadaha islaamiga laakiin markii ay burbureen waxa uu iskaashi cusub la yeeshay dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab Axmed Madoobe waxa uu awoodda Jubbaland qabsaday sanadkii 2013 kadib markii uu abaabulay dagaal ciidan oo lagu weeqay Al-Shabaabka ku sugnaa deegaanada gobolka Jubbada Hoose isagoona taageero ka helay dawladda Kenya iyo ciidamada AMISOM Axmed waxa uu iskaashi la sameeyay beelaha dega Jubbaland si uu u helo taageero gudaha iyadoo Kenya ay door weyn ka qaadatay xaqiijinta himiladiisa Axmed waxa uu doorasho qabsaday sanadkii 2013 isagoona ku noqday madaxweynaha maamulka Jubbaland balse waxay dhalisay muran badan maadaama dawladii dhexe xilligaasi aysan aqoonsanayn natiijadaasi Axmed Madoobe waxa uu sameeyay xeelado siyaasadeed oo xoojinaya awoodiisa isagoona meesha ka saaray mucaaradkiisa gudaha iyo kuwii dibadda Axmed Madoobe waxa marar badan lagu eedeeyay inuu yahay shakhsi ku xadgudba nidaamka doorashooyinka isagoo loo arko inuu qabto doorashooyin afduuman oo aan xor ahayn isla markaana la ogyahay qofka soo baxaya ku tiirsanaanta Kenya ee Axmed Maxamed Islaam waxa lagu eedeeyay inuu ku xiran yahay siyaasadda Kenya taas oo dadka qaar ay u arkaan inay qatar ku tahay madax banaanida Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam waxa uu marar badan si xeel dheer uga horyimay isku dayada dawladda dhexe ay ku doonaysay inay ku xakamayso maamulkiisa marar badan ayuu diiday inuu aqbalo faragelinta fila Soomaaliya isagoo adeegsanaya taageerada dawladda Kenya iyo qaar ka mid ah beesha caalamka waxa xusid mudan in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland uu la soo diray inta badan madaxdii soo martay shirki cad kadib dawladda dhexe ee Soomaaliya laga soo bilaabay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Madoobe doorashadii 2019 mar kale uu ku guuleystay Jubbaland ayaa loo arkayay mid cabsi muran badan ku dhisan dawladdu waxay doorashadiisa ku tilmaamatay mid afduuban Axmedna waxa uu ku adkaystay inuu yahay hogaamiyaha sharciga ee Jubbaland dooratay Axmed Madoobe waa hogaamiye muran badan ka dhexdheliyay siyaasadda xasiloonaan ee Soomaaliya laakiin sidoo kale waa shakhsi ku guuleystay inuu Jubbaland ka dhigo maamul firfircoon walow Jubbaland Axmed Madoobe ay ku kooban tahay magaalada Kismaayo waxa hubaal ah inuu yahay shakhsi adag oo xeelado siyaasadeed kuna adkaysta maamulkiisa si kastaba haddii dawladda dhexe ama beelaha kale ay doonayaan inay xakameeyaan awoodiisa waxa ay u baahan tahay inay isticmaalaan xeelado taxaddar leh si aysan u abuurin qiraaf hor leh iyo halis ku aadan nabadda Soomaaliya